upande wa pili kusikiza. Mr. President, katiba ya Kenya inasema kila mwananchi ana haki ya kupata maji safi, elimu na matibabu. Leo vipi unageuza katiba mwananchi awe mwandawazimu na awe mzombi? Hatokubali katika nchi ya Kenya yoyote yule ya kwamba atatulazimisha wa pwani kuweza kutumia vitu ambao inaharibu vijana wetu. Mr. President, umesema ya kwamba utamtuma waziri wako wa kilimo kukaa na viongozi wa Mombasa. Na tunasema hivi, hatuna haja na waziri wa kilimo kuja Mombasa. Tunakuhitaji wewe uje Mombasa ukae na viongozi wa Mombasa. Waziri wa kilimo kutoka huko. Kwa hivyo, Mr. President, wewe ni mtu mchaji Mungu na unaenda kanisani. Biblia na Qurani inasema atakapokujia mtu upande mmoja ni lazima usikize upande wa pili. Assalamu alaikum warahmatullah. Muwaadiniinta reer Mombasa madaxa noo saarantii waan salaamaya. Ninkan odagahay isagoo la hadlay madaxweyne William Ruto wuxuu yiri madaxweyne waxa tahay nin kaniisada gala, waxa tahay nin Ilaahay yaqaan, wax aadan carruurtaada u ogolaateen annaga ha nagu oran carruurtayda u ogolaada. Carruurta aan soo korinay oo aan rabno inaan wax barno, oo aan rabno inaan caafimaadkooda ka shaqeyno, oo aan rabno inaan waxbarashadooda ka shaqeyno, oo aan rabo horumarintooda inaan ka shaqeyno, u ogolaan mayno wax maankooda doorinaya, muruqooda fariisinaya oo dhibaato u geenaya. Ma ka yeelayno cidna. mudana madaxweyne buu yiri asagoo hadalkiisa sii wata, waxaa tiri waxaan idiin soo dirayaa wasiirka beeraha inuu Mombasa tago oo guddiga la kulmo, odayaasha la kulmo, arrinta la dejiyo. wax laga kulmayaa ma jiraan. kaale adigu haddaad noo imaanaysa madaxweyne, adiga madaxweynaha yagii kaale imow oo arag kuwa isbitaalada ku jiro maankooda dooran yahay. kaale annaga nala fariiso arag. nooma soo diri kartid wasiirka beeraha. go'aankaas annaga qaadanay, carruurtayada iyo reerahayaga iyo daroogadan dhibaatada nagu haysta annaga go'aan ka qaadanay. raganimo erayadan fasiraadooda wixii aan ka qalday team qaadid Kenya ayaa iska leh. aad bay u mahadsan yihiin shaqada wacanad haysaan. keep coming. waxaan dareemayaa saxasaxada guusha. meeday baan leeyahay Rey, Isiolo, Wajeer, Garissa, Mandera. What the hell is wrong with you? The largest consumer party, and you are remaining silent from the debate. You know, as they say, if you are not in the decision-making table, you must be on the menu. Kakaca meesha asaagii raaca. waxaa kaloo la yaab la madaxweynuhu culayska wuxuu saarayaa Mombasa kaliya. goboladii Christianka ahaa oo yiri ninkii kaniisada inta hadlay gambaleelka saa u yiri Jesus Christ karinooba soo gali karo. hadal dabal laguma celin. The mayor of farmers, they are only targeting Mombasa people. Why? There are non-Muslim regions who are Mira is forbidden. Why don't you talk to them? It's very interesting. It's hypocrisy badan baan u jeedaa. And Mr. William Ruto, Mr. President, as an African leader, ambitious African leader who inspired millions and wants to see bigger picture. Now, you are telling us you want to destroy Kenyan youth with drugs. In one hand, you are saying, I want to inspire, I want to take Kenya to next level. On the other hand, you are saying the Kenyan young people should do Mira. Is that your kind of leadership? Don't let these Meru farmers, gangsters who are blackmailing you with votes of 2027 election. Don't. Better Kenya will vote for you. Don't listen to these morally corrupted drug cartels coming from Meru. أدنى سلامة أنت صحيح سيدر غير كفار Somali qaadkii laga soo celiyo caleemaha iskuulada hortooda lagu galaya maanta la geeyay. Hello Muqdisho, hello Garowe, asaagina la idinka reeb doodaal la isku haystaa iyo protectionka carruurtooda waa wadankii qaadka soo saarayay. idinkuna sida xaaladii aad ishi ma soo dhacay naga taga tacabka qasaadi idinku daalasi wax badan kugu sheegnay ilaahay ka cabsada.